kulan wacan daawadayaal waa muuse xoshow kusoo dhawaada wararka wargeysyada iyo waxyaabaha ka qoran suuqa kala iibsiga waxaana ugu waaweyn saddex kooxaha horyaalka Premier League ee heerka sare ah ayaa ku dagaalamaya saxiixa Dusan Vlahovic. Liverpool waxa ay wadahadal rasmi ah la furtay Mohamed Salah, Virgil van Dijk iyo Trent Alexander-Arnold oo dhammaantood ay doonayso inay heshiisyada kordhiyaan. Waxaa kaloo ku jira oo aan idinkugu hayaa Manchester City iyo Liverpool oo dagaalkoodu uu sii xoogeysanayo marka la eego saxiixa qadka dhexe ee dalka Spain Martin Zubimendi. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan dabcan idinkugu hayaa, balse inta aanan gudagelin daawadayaal waxaan idinka codsanaynaa haddii aad nagu cusub tihiin inaad janaalka noo subscribe garaysaan, sidoo kalena aad inoo share garaysaan oo like-tana aad inoo saartaan si saaxiibo hor leh uu inoogu gaaro. waanaad ku mahadsantihiin la socodkeena. aynu ku bilowno. Kooxaha Arsenal, Chelsea iyo Manchester United ayaa baaqi ku ah doonista ciyaaryahanka Dusan Vlahovic oo kooxda Juventus ka tirsan, waxaana Juve ay sheegtay inay tixgelinayso weeraryahanka reer Serbiya ee 24 jirka ah haddii aanu doonaynin in heshiis cusub uu saxiixo inuu kooxda ka dhaqaaqi karo. TBR Football ayaa sidaas wariyey. Liverpool ayaa waxa ay wadahadal rasmi ah oo heshiis kordhina la furtay ciyaaryahanka Mohamed Salah ee weerarka ka ciyaara, kaasoo 32 jir ah. Wargeyska Athletic ayaa sidaas isna warinaya. Isla Liverpool waxay indhaha ku haysaa sidii Netherland xidigeeda difaaca dhexe Virgil van Dijk oo 33 jir ah iyo England difaaceeda dhinaca midig oo 26 jir ah Trent Alexander-Arnold ay heshiisyada ugu kordhin lahayd. Wargeyska Star ayaa sidaas isna wariyey. Manchester City waxay isku dayeysaa inay Liverpool ku garaacdo saxiixa laacibka khadka dhexe ee reer Spain Martin Zubimendi oo 25 jir ah, Real Sociedad ka tirsan. Football Insider ayaa sidaas isna warinaya. Crystal Palace ayaa isku dayeysa Olympique Lyon 22 jirkeeda reer France ee garabka ka ciyaara Ryan Cherki, kaasoo kooxo fara badan oo Yurub ah ay raadinayaan sida Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund iyo kuwo kale oo dhammaantood ku tartamaya. Wargeyska The Sun ayaa wariyey. Aston Villa waxay ka mid tahay 4 kooxood oo horyaalka Premier League ka ciyaara oo danaynaya Juventus iyo Turkiga xidigooda garabka ka ciyaara ee Kenan Yildiz oo 19 sano jir ah, waxaana lagu qaadan karaa xidigan 26 milyan oo lacagta ganiga. Birmingham Live ayaa sidaas isna wariyey. AC Milan waxa ay indhaha ku haysaa in ciyaaryahanka kooxda Chelsea ee Carnage Chukwuemeka ay si rasmi ah ula wareegto. 21 sano jirkan ayaana soo jiitay indhaha kooxda Celtic. Sidoo kale Football Italia ayaa sidaas warinaya. Real Madrid 18 jirkeeda reer Brazil ee weerarka ka ciyaara Endrick ayaa go'aansan doona in aanu amaah uga dhaqaaqin kooxda bisha January, islamarkaana waxa uu sii wadan doonaa inuu dagaalamo booskiisa. Wargeyska Marca ayaa wariyey. Georgia xidiga garabka uga ciyaara ee Kafija Kvaratskhelia oo 23 jir ah waxa uu kusii dhowaanayaa inuu heshiiska u kordhiyo kooxda Napoli oo uu gaarsiiyo tan iyo 2029. Corriere dello Sport oo Talyaaniga ayaa wariyey. West Ham waxay tixgelinaysaa Massimiliano Allegri in uu noqon doono tababaraha bedelaya Julian Lopetegui haddii uu baneeyo shaqada kooxdan oo uu ku fashilan yahay muddooyinkan dambe. Football Insider ayaa isna sidaas wariyey. Isagaas ayaana ugu dambeeyey daawadayaal wararkii wargeysyada iyo suuqa kala iibsiga waxyaabihii ay ka qoreen. Muuse Xusho ayaa idinla socodsiinayey. daawadayaal subscribe-ta inoo saara, sidoo kale haddii aad horey noola joogtay like-ta iyo share-ta inoogu dhufo si aan dad badan u gaarno. waanaad ku mahadsantihiin la socodkeena.